السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قلبنا أكسن دبا بالشيء الصوماليين ملك سوا جوكتان يسكستو أدنا مغليسان wararka ka imaanaya waqooyiga magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in halkaasi uu goor dhaweyd ka dhacay dagaal xoogan oo u dhaxeeya ciidamo ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya. Gaari dagaal oo ay leeyihiin ciidanka xooga dalka ayaa lagu gubay iska hor imaadka dhex maray ciidamada militariga ah iyo kuwa booliska Soomaaliyeed. Iska hor imaadkan ayaa ka dhacay isgoyska Manabolio ee magaalada Muqdisho kadib markii ciidamo ka tirsan booliska oo ku sugnaa kontarool halkaasi ku yaala ay diideen in ay halkaasi ka gudbaan ciidamo militari ah oo ka yimid gobolka Shabeellaha Dhexe. Booliska ku sugnaa kontaroolka ayaa sheegay in aysan amar u qabin in ay fasaxaan ciidamada militariga ah ee doonayay in ay ka gudbaan kontaroolkaasi, waxaana arrintaasi ka dhashay ismaandhaaf sababay in halkaasi lagu dagaalamo. dadka deegaanka ayaa xaqiijiyay in gaari ay wateen ciidanka militariga la gubay kadib dagaal dhex maray labada dhinac. lama oga ilaa iyo hadda khasaaraha nafeed ee kala gaaray ciidamada dagaalamay, hase yeeshee dad deegaanka ah ayaa la sheegayaa in sidoo kale halkaasi ay ku geeriyoodeen. dadka deegaanka ayaa sheegaya inay ka cabsi qabaan in dagaalku intaasi ka xoogaysto oo ciidamadaasi militariga ah ay gurmad ka helaan ciidamo kale. wixii ku soo kordhaa dib ayaan idinkala socodsiin doonaa. hada billahi tawfiiq. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.